kulamo dardar leh ayaa si weyn kaga socda magaalada Baydhabo ee caasimada kumeel gaarka maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya kuwaasi oo ay wadaan madaxda dawladda federaalka Soomaaliya sidoo kale siyaasiyiinta doonaya xilka madaxtinimo ee maamulkaasi sidoo kale kulamadan ayaa diiradda lagu saarayaa hanaanka geedu socodka maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya iyo sidoo kale sidii bulshada deegaanada maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya ay uga tashan lahaayeen geedu socodka maamulka ay doona sidoo kale mas'uuliyiinta ay la kulmayaan qaybaha kala duwan ee bulshada si loo helo aragtiyo midaysan oo ku aadan jihada siyaasadeed sidoo kale madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa magaalada Baydhabo ka wada kulamo uu la qaadanayo mas'uuliyiinta heer federaal iyo qaybaha kala duwan ee bulshada magaalada Baydhabo ku dhaqan kulamadan ayaana sidoo kale la xiriira sidii xal waara loogu raadin lahaa xaaladda deegaanada maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya oo dhamaadkii bishii Maars ay ka dhaceen isbedelo ay dawladda federaalka Soomaaliya hormuud u tahay xilkana looga tuuray madaxweynihii maamulkaasi Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagareen dhanka kale madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa rabaa inuu ku qanciyo dhammaan dhinacyada siyaasadda Koonfur Galbeed in ay u diyaar garoobaan aragtida doorashada ee dawladda federaalka Soomaaliya taasi oo ah doorasho qof iyo cod rabitaanka dawladda federaalka Soomaaliya ee Koonfur Galbeed ayaa waxa garab socda siyaasiyiin xildoon oo madax banaan oo ay kamid yihiin Maxamed Aadan Farkeeti sidoo kale Shariif Xasan Sheekh Aadan oo dhawaan gaaray magaalada Baydhabo ee caasimada kumeel gaarka maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya isku soo wada duubo kulamadan dardar kale ee ka socda magaalada Baydhabo ee caasimada kumeel gaarka maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa la filayaa inay hormuud u noqdaan go'aano muhiim ah ku saabsan hanaanka doorashooyinka iyo sidoo kale mustaqbalka siyaasadeed ee maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya